wariyayaalka kala socday dowladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleedka Puntland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo aqoon kororsi muddo 7 bari socday ugu soo xirmay magaalada Kampala wafdigan uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa munaasabad sagootin ah ay u sameeyeen safaaradda Soomaalida ee dalka Uganda munaasabada ayaa ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka socday safaaradda Soomaalida gudoomiyaha ardayda iyo gudoomiyayaasha jaamacadaha ugu horeen waxaa goobta ka hadlay siyahayaha safiirka Soomaalida u fadhiya Uganda Cali Maxamed Maxamuud Cagabaruur waxay ahayd fursad fiican inay isku arkaan dhalinyarada wadankan wax ka baratay ama qaar hadda dhameeyeen oo diyaar u ah inay wadanka ku laabtaan ama qaar wali waxbarashada ku jira oo dad runtii intellectualist fursadna ay u naqatay inay la kulmaan madaxda saxaafadda Soomaaliyeed dadkoodii ugu sarsareeyay ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer maamul goboleed sida aan la wada socono madaxda saxaafadda Soomaaliyeed ay u yimideen aqoon kororsi ku saabsan electionka soo socda 2020-2021 agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa uga mahadceliyay kulankii sagootinta ay u sameysay safaaradda Soomaalida waxaan jeclahay marka hore inaan u mahadceliyo ambassador Cali iyo teamkiisa oo dabcan ay ku jiraan dhammaan dadka halkan joogay inta ka maqan soo dhaweyntan iyo martisoorkan iyo qiimeynta weyn aad noo sameyseen jazaakumullahu khayr marka wariyaashu waa dad wax qora waxaan rajaynaynaa waana la socdaa meelo badanna waa la tagaa inaan taariikhda la hilmaamo maaragtay aad runtii u soconaa waa adag tahay ambassador intaas maaragtay shaqadiisu waliba ay badan tahay hawlo badan u yeeleen waqti intaas leeg inuu maaragtay ku bixiyo inuu dadka saas oo warqabo marka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ku dayashada wanaagsan uu sameeyay anaga meeshaan waxaan u imaan fursad qaali aan helnay oo sida lagu helo aad u dhib badan tahay waxaan ku mahadsan wasaaradda warfaafinta tababaro oo codeynta electionka 2020 am 2021ka inaan barano haddana ku celino wadankeena si micnaha dadkii waxyaalo badan ka maqan mana fahansano aan ugu shubno haduu ilaa yiraahdo si journalismkii arrimaha bulshada kulli ula qabsadaan haduu ilaa yiraahdo si aan doorashada waxyaalo badan hadda markay noo sheekeynayaan macallimiinteena anaga naftigeeni meesha afadina isla yaabnay because wadamadooda markay ay ka sheekeynayaan tanaasulada ay sameeyeen sida electionka uu qayb qaadanayaan xataa macallimiinta waxa fahmaysaa inay u diyaarsan yihiin oo u biseel yihiin wadan jaceelka anaga laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan bilownahay la qabsan doono Ayub Xaraare CNA Kampala